شفني قدح بعد احتاله شبوي لما بحاول بطاهر وبجابي استجل waxaan rabaa mudane madaxweyne inaan ku bilowno 75 sano kadib ayaan isugu nimid habeen ay hawo fiican ka jirto magaalada Muqdisho 75 sano kadib ayaan u dabaaldegaynaa xaflad dhalinyaro Soomaaliyeed oo mutaysatay in sanad walba loo dabaaldego 75 sano kadib 750 oo sano kadibna loo dabaaldegi doono hadii Ilaahay yiraahdo waxay ku mutaysteen in loo dabaaldego waxay dhaliyaan guusha iyo xorriyadda caawa halkan ku fadhidaan kulligeen waxay ku mutaysteen inay muujiyaan macno ka weyn macnaha ay ku fadhiyeen iyagoo daadooda ay u dhaxaysay 15 iyo 20 sano waxay waqtigaas ku fikireen inay dalka ka xoreeyaan gumaysi waxay ku fikireen inay mideeyaan ummadda Soomaaliyeed waxay waqtigaas ku fikireen inay suuliyaan oo ay dalka ka tirtiraan qabyaaladda waxay waqtigaas ku fikireen inay ummadda Soomaaliyeed wax baraan bilaabaan qorista af Soomaaliga waqtiga iyada waxay waqtigaas ku fikireen iyadoo aanay maskaxda dad waqtiga jooga gali karin maadaama uu wadanka joogay gumaysi inay naftooda iyo dhiigooda ku bixiyaan inay gumaysi wadanka ka xoreeyaan sababtay ugu xoreynayeen waxay ahayd in caawa annagu halkan aan fadhino sababtaas waxay ahayd in dadka iyaga ka dambeeya aanay arkin gumaysi dambe in didibada loo taago qaran Soomaaliyeed oo ay harsadaan dad Soomaaliyeed waxaan Ilaahay uga baryaynaa kulligood inuu Ilaahay jannada ka waraabiyo waxaan Ilaahay uga baryaynaa awlaadii iyagu ay ka tageena in Ilaahay ku hanuuniyo dariiqa iyagu ay mareen annagu waxaan rajaynaynaa inay noo noqdaan tusaale aanu adeegno kuwa hadda iyaga daadooda oo kala ah iyo kuwa naga dambeeya hadii Ilaahay yiraahdo dhalinyaradii waqtigaas jirtay ayaan rabaa inaan wax yar ka tilmaamo aqoonta ay lahaayeen way ka yaraataan haddaan leenahay dhaqaalaha ay haysteen tiknoolajiyada ama casriga waqtigaas jiray isu socodka dhaqdhaqaaqa fursadda isabaabulku waa uu ka yaraa inta aan hadda haysano laakiin 75 sano kadib haddii aad akhriso buugaagta qaarkood waxaad ku arkaysaa gumaysigii ay la dagaaleen waqtigaa isaga ah gumaysigii ay la dagaalameen waqtigaa isaga ah si ay dalka u xoreeyaan annagana noogu aasaasan noloshaan maanta haysano waxay qireen Soomaalidu inay dadka ka duwanaayeen waxay qireen Soomaalidu inaanay aqbalayn in la gumaysto waxay qireen dalalkii ay soo gumaysteen iyo Soomaaliya inay kala laba yihiin waxay aqbaleen Soomaalidu inay ogol yihiin dhiigooda inay bixiyaan si dalkooda ay u xoreeyaan